laba kelmadood ka yiraahdo xaaladaha degmada Boorama ku sugan tahay horseedka uu ka yahay gudoomiye abaar oo maalintii la soo doortay ilaa maanta abaar aan ka bixilaanay taasoo uu sharciyadii baalmaray oo maantana uu soo jideystay sharci yar oo jeebada kala soo baxay oo ah marka hay'ad la wareejinayo ama triple B la doonayo in shaqadii loo igmaday triple B gaasi ay shaqayn weydo oo ay caqabadiba ka timaado cid awoodda u leh inay soo celiso awoodda u leh in ay company kale tartan siiso oo waajibaadkiisii shaqo uu baalmaray shakhsiyanna uu awoodii golaha oo dhan jeebada ku ritay taa waxaan leeyahay walaalkay mudane abaar sharciga kaliya jeebada kuma sidatid shaqada waxaad la qabtaaba xukuumadda dhan ee maanta jirta taasoo nin walba halka uu fadhiyo inuu biyaha ka gaadho laakiin xaaladda degmada maanta way ka duwan tahay oo adigu ma tihid wasiir ama agaasime shaqadiisa gaarka u maamulanaya laakiin waxa tahay adigu miskiin golaha hor fadhiya deegaan oo loo dhiibayo hawl qabadkiisii ama hawl maalmeedkiisii shaqo oo golahu ay ansixinayaan shaqada tan maanta taaganna nadaafadda ama sanitationka Boorama haddii baad awood u yeelan karta inaad adigu bixiso waan kuugu ducaynaynaa waan kuugu hambalyeynaa laakiin yaa awood u leh balorta waxaan ku leeyahay xeerka aad degmada ku maamulayso iyo xeerka gobolada iyo degmooyinka please akhri waxa kuugu qoran ee waajibaadkaaga aana ka garo waa tilmaan aan ku siinayno tilmaanta haddaad qaadan weydo waxa kuugu xigi doontaa inaan si qurux badan kugu salaamno waxaan leeyahay xeer number 23 qodobkiisa 9 waxa uu dhigayaa cid awood u leh inay triple B bixiso ama ay soo celiso waa golaha deegaanka oo dhameystiran golaha deegaanka awood u leh in ay triple B oo macnaheedu ay tahay public private sectors oo ay ka mid tahay sanitationku waa biyaha Boorama sanitationka kawaanka intaasiba waxa bixiyay gola deegaan baa bixiyay hadiiba cid ay soo celinayso oo awood u leeyahay inuu kaligiis soo celiyo aan kugu hambalyeynaa baan ku leeyahay sharciyadana waad baalmarsan tahay laakiin waan kugu toosinaynaa adoo qoslayna suuqan isku arki talabaad waxaan mar labaad ugu celinayaa awooddaasi waa awood gola deegaan adu soo jeedin baad leedahay hadii ay caqabadi ka timaado waxyaabaha yar jeebadaha kala soo baxaysa ee lagu marin habaabinayo ciidanka ku dhaw way ku dilayaan baan malaynayaa noloshaada inay jeclaynay miiska soo dhig golaha soo hor dhig golaha waajibaadkiisa ka maran hal loo codayaan ku leeyahay hadiiba golahu soo ceshanayo iyo haduu kuwan u sii deynayo awood waxa iska leh golaha deegaanka waxana siiyay qodobka 9 farqadiisa koobaad 2 3 4 wasalaam